cabdishakuur waa mahadsan tahay nation iyo shaqaaladina waa mahad celinaya marka ugu horeysa maanta waa maalinta caalamiga ah ee saxaafadda xorriyadda saxaafadda adduunka maalintan waxay daaran tahay ama loogu talagalay in la tilmaamo marka ugu horeysa tacadiyada ama xaaladaha ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta caqabadaha haysta sidoo kalena waa maalin la codsado dhaqdhaqaaqa saxaafadda caqabadaha haysta in laga hor qaado oo la siiyo waxaa la yidhahdo access ama gaaritaan sanadkan halkudhigga la isticmaalayo oo qaramada midooba ay u saartay waxay tahay faafinta xogta ama baahinta xogta oo loo adeegsado sida u wanaagsan dadweynaha danta dadweynaha waxaana ereygaas loo qaatay iyadoo la fiirinayo caqabadii ka dhalatay covid-19 oo sanadkan dhisan ka horreeyey dunida meelo badan dadka la ogaaday dowladuhu dulqaad la-aantooda la ogaaday iyo sida saxaafadda ay u xayiraayaan xogtii dadka lagu badbaadin lahaana ay dowladuhu xayiraad saarayeen dhinaca kalena dowladaha kalitaliska ay u adeegsadeen marmarsiiyo covid-19 inay soo rogaan xayiraad saxaafadda ay caburiyaan wax kastana ay dhahaan cudurka dartiis ayaan u yeelin ay dhahaan ayay noqotay soomaaliya waxaa markaa isqabsaday 3 arrimood arrinta koowaad waxay tahay amni darro guud ahaan dalka jirtay oo muddoba soo taagneed 2 covid-19 oo sanadka hore jiray sanadkaana soo laba kacleeyay caqabadna ku keenay saxaafadda iyo shaqadeeda 3 arrinta doorashada oo ismarawaaga oo qoorta ay isugu jiraan dadka siyaasadda maaragtay hogaamiya arrintaas culayskeedii wuxuu ku soo noqday shacabka iyo saxaafaddu ku soo noqday Soomaaliyeed 3daas arrimood ay isbiirsaday annaga marka waxaan soo saarnay 2 warbixinood oo labadaba xaaladda xorriyadda saxaafadda Soomaaliya ka hadlayaan mid waxay ku saabsan tahay tacadiyadii dhacay 4 bilood oo la soo dhaafay 30 wariyaal la xiray 3 idaacadood waa la weeraray 1 waa la dilay 2 wariyana waa la dhaawacay xadgudubyadaas boqolkiiba 90 waxaa geysanaya ciidamada ammaanka niiso ugu horeyso haram cad booliiska ku jiraan maamul goboleedyada ciidamadooda ammaan ku jiraan sida Puntland galmudug koonfur galbeed hirshabelle ku jiraan Somaliland kaliya 6 saxafi ayay xirtay 4 bilood gudahood tacadiyadaas nasiib darro oo dhacay cid lagu la xisaabtamay ma jirto jaandaar rogan dadkii sameeyey suuqay socdaan annagay nala mid yihiin cid haysatay iyo cid la xisaabtamaysa ma jirto taas oo ka dhigan in Soomaaliya weli ay haysato kaalintii ama darajadii la siiyey darajada waxaa lagu qaataa adduunka xumaan iyo wanaag Soomaaliya darajada waxay ku qaadanaysaa dowladnimadeeda xumaan ayay ku qaadanaysaa waxayna tahay waddanka ugu xun adduunka ee dadka wariyaasha dila ay suuqa iska maraan oo cidna qabanin waxay noqotay waddanka ka mid ah wadamada saxafi uu ku shaqeeyo meesha ugu adag meelaha ugu adag adduunka ayay ka mid noqotay waxaa marka baaqeen uu yahay ama fariinteenu ay tahay maalintan marka koowaad maamul goboleedyada iyo dowladda dalka waxaan ugu baaqeynaa inay u sheegaan ciidamadooda ammaanka inay joojiyaan weerarada ay la beegsanayaan suxufiyiinta 2 in ay dhammaato isla xisaabtan la'aanta oo dib loogu soo laabto sharciga iyo nidaamka dadka tacadiyada geystana baaritaan lagu sameeyo oo ay ku jiraan dilalka iyo weerarada ay geysteen dadka u shaqeeya dowladda ama dadka ku lugta leh hay-adaha dowladda dhinaca amniga ku lugta leh oo ay ku jiro kiiskii dilka wariye cabdirasaaq qaasim iimaan oo 26 July 2018 magaalada Muqdisho suuqa beerta lagu dilay askarigii dilan ilaa hadda aan xabsi la geyn xataa markii maxkamadda ciidamada ay codsatay in la soo xiro arrinta kale ku xigtana waxay tahay waxaan dalbanaynaa in la joojiyo sharciga ciqaabta ah ee la yiraahdo penal code-ka ama xeerka ciqaabta ee wariyaasha loo adeegsado ee lagu maxkamadeeyo oo sanadkan aan ogtahay 2 wariye la geeyay maxkamado midna uu yahay Kilwe Aadan Faarax midna uu yahay wariye aadan cabdi iyo hargeysa lagu xiray waa sanadkan 4 bilood la soo dhaafay sanadihii ka horreeyayna waxaa la xiray Abuja waxaa la xiray Gurbiye dhammaantoodna waxaa lagu qaaday xeerka ciqaabta ayaa lagu qaaday qaarkoodna maxkamadda military la geeyay marka sida dowladda hore ay u ballan qaaday oo ahayd inay joojinayso inay ciqaab ka dhigto shaqada saxaafadda dambi ay u aragto inay joojiso baaritaan lagu sameeyo dilalka waxaa noo wajahiyo noo raaca marka bulshada caalamka ama beesha caalamka Soomaaliya taageerto waxaan idin u sheegaynaa indhaha ka qabsanayna waxa Soomaaliya ka socda kaalin iyo door ayaa ku leedihiin lacagta ayaad siisaan dowladda iyo hay'adaha ammaanka waa inaad bannaanka soo istaagtaan oo si cad u sheegtaan oo tirahdaan ma aqbalayno weerarada lagu qaadayo saxaafadda umana dulqaadan inaad tirahdaan intaas lacag idinkagama baxayso dhaqaale ma ahan kharash uma baahan inay beesha caalamku tirahdo saxaafadda weeraradeeda ma aqbalayno marka bannaanka soo istaaga intaas lacag ma ahane sheega oo dhaha waxaa noo dheeraa warbixin labaad oo aan kaga hadlaynay xaaladda wariyaasha ay ku shaqeeyaan dhinaca online-ka waxaa soo batay weerarada
lagu geysanayo facebooka facebooka maanta soomaaliya wuxuu ka yahay isticmaalkiisa 34% tirakoobkii u dambeeyay siduu sheegay laakiin nasiib darro halkii wanaag loo isticmaali lahaa facebook maanta wuxuu noqday meel saxaafadda lagu caburiyo wariyaasha aan waraysanay waxay noo sheegeen in marka ay soo dhigaan qoraallo iyo warar soo dhigaan in la dacweynayo oo la report garaynayo qaarkood lagu qabsanayo wax la yidhaha copyright-ka lagu qabsanayo iyadoo been abuur ay tahay qaarkoodna la isku dayayo content-iga iyo waxa ay sameeyaan in la maaragtay laga faafiyo fariimo qaldan taasna ay keento facebook ama inay delete garayso tirtirto ama in restriction la saaro oo xanimaad la saaro wariyaashii qabsatay idaacadihii qabsatay arrinta kalena waxay tahay facebook wuxuu noqday maanta meesha ugu weyn ee wararka been abuurka lagu faafiyo gaar ahaan propagandada ka yimaada dowladda iyo xulufadeeda iyo kooxaha dowladda taageersan ee la yidhahdo cayayaanka baraha bulshada taas oo ay keentay ama sabab ay u noqotay in wariyaashu maanta ay ka walwalaan maxaa run ah maxaa been ah wararka see u qaadanaysaa see isaga xaqiijinaysaa waxaan ku xusuusinayaa 28 bishii oo ku beegneed toddobaadkii hor dhammaadkiisa waxaa la faafiyey in gabar fanaanada ay dhimatay warkaas wuxuu ka yimid baraha bulshada facebook ka yimid warbaahinta way qaadatay laakiin nasiib darro warkaa been u noqday waxay sababtay marka in warbaahinta ay ku khasbanaato in warkii dib ay raaligelin uga bixiso marka facebook wuxuu noqday meesha ugu weyn ee disinformationka ama xogta qaldan ee been abuurka lagu faafiyo culayska ugu weyn wariyaashu waxay noo sheegeen inuu bilowday 2017 markii uu bilowday khilaafka siyaasadeed ee wadamada khaliijka carabta qatar iyo maaragtay imaaraadka iyo sacuudiga uu bilowday soomaaliyana saameyn ayay arrintaas ku leeyahay maadaama ay dhinac ka mid ah la safatay propagandada soomaaliya marka waxay u noqotay ubuc ama epicenter meel propagandada lagu faafiyo ayay noqotay meesha ugu weyn ay ka dhacayaan waa baraha bulshada dhibaatadan waxay ku dhacaysaa suxufiyiinta sidoo kasoo kale wariyaasha gabdhaha ayaa cadaadis la kulmaya hadday ka hadlaan arrimaha siyaasadda hadday ka hadlaan amniga hadday ka hadlaan musuq maasuqa iyo xadgudubyada kale waa la beegsanaya waxayna ku qasabtay in gabdhuhu aamusaan ay ka cabsadaan arrimaha xasaasiga ay ka cabsadaan hay-adaha warbaahinta idaacadaha iyo telefishinada markay arrimo sida mudaharaadyada iyo weerarada al-shabaab markay ka hadlaan in trolliska ama qolada la yidhaha cayaanka bulshada ay soo weeraraan oo markaas aad loo report gareeyo ama mararka qaarkood la aflagaadeeyo waxaan diiwaan gelinay maalmihii u dambeeyey fariimo toos waxaa la yidhaahdo weerar toos ah oo tusaale ahaan lagu baaqayo wariyaasha in qoorta laga gooyo ama madaxa laga gooyo qaarkood lagu baaqayo idaacadaha in la weeraro oo magacooda la sheegayo la tilmaamayo arrintaas oo u dhiganta kicin rabshad toos u dhiganta facebookna mas-uuliyada kasta arrintaas inay wax ka qabato waxaan ugu baaqnay marka shirkadda facebook xiriirana la lahayn ka hor warbixintan arrimahana waa u sheegaynay haddana waxaan usoo saarnay warbixinta waxay inay ogaadaan waxa ka dhacay soomaaliya mas-uuliyadda qayb ay ka qaadanayan haddii facebook fariimo ka yimid dad loo dilo sida ka dhacday myanmar oo rabshada ay ka dhacday sida wadamo kale adduunyada ka dhacday facebook waa la isku qabsanaya maxkamadana la isu tagaya shirkadda facebook marka waxaan ku baaqaynaa inay goor tahay inay arrinta soo fargeliso wax ka qabato cayaanka baraha bulshada joojiso annaguna waa kala shaqaynaynaa sidii loo joojin lahaa loogana hortegi lahaa warbaahinta iyo wariyaashuna access fiican la siiyo oo xogtooda iyo waxooda loo daayo oo xorriyadda warbaahinta facebookana ay noqoto mid sugan oo lama taabtaana